guud ahaanba ku wado in laga hor yimaado la yiraahdo maya. ciidamada booliska Soomaaliya ayaa joojiyay banaanbax lagu taageerayo ra'iisul wasaare Roble. ciidamada booliska Soomaaliya ayaa goordhow kala eriyay dad isugu soo baxay xaafado kamid ah degmada Hodan ee bartamaha magaalada Muqdisho kuwaasi oo dhigayay banaanbax lagu taageerayo ra'iisul wasaare Roble loogana soo horjeeday madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dadka isu soo baxay oo watay boorar ay ku qoran yihiin afgembi maya doorashaha ayaa waxa uu taagay ciidamo booliis ah kuwaasi oo ku amray inay goobta iskaga tagaan taasi oo sabab u noqotay inuu banaanbixi istaago. wasiirkii hore amniga galmudug Axmed Macali Fiqi oo horboodayay banaanbaxayaasha ayaa sheegay in ciidamo ay soo direen taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliya Kanifa iyo taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ay sabab u ahaayeen inuu istaago banaanbaxa. gar ay soo direen taliye ku-xigeenka booliska Kanifa iyo taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ayaa la sheegay inay hor istaag ku sameeyeen banaanbax si nabad ah uga socday degmada Hodan ayuu yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook. Axmed Macali Fiqi Fiqi ayaa cadeeyay in saraakiisha booliska ay dhegaha ka fureysanayaan hadalkii ra'iisul wasaaraha isagoo tilmaamay inay weli ka amar qaadanayaan farmaajo. waxaa muuqata in nimankaas in weli la shaqeynayaan rajiimka waqtigiisu dhamaaday ayna dhegaha ka fureysanayaan ra'iisul wasaaraha iyo hadalkiisa ku soo xiray Axmed Macali Fiqi. kale waxaa asna ka hadlay istaaga lagu sameeyay banaanbaxani hogaamiyaha xisbigooda jira Cabdiraxmaan Shkuur Warsame. qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuuna ku yiri dibadbax looga soo horjeedo afgembigii farmaajo ayaa waxaa hor istaagay Farxaan Qaroole iyo Kanifa. ra'iisul wasaare Roble iyo wasiirkiisa amniga waxaa ka codsanaynaa in ay dadka ka horwareejiyaan haraadiga Cabdikariin Xuseen Guuleed. qoraal uu kooban oo soo dhigay bartiisa Facebook ayuuna ku yiri dibadbax nabadeed oo looga soo horjeeday afgembigii fashilmay ayaa waxaa si sharci darro ah hor istaagay taliye ku-xigeenka booliska iyo taliyaha gobolka Banaadir. haddaba waxaa Roble iyo wasiirka amniga laga doonayaa inay tallaabo degdeg ah oo sharciga waafaqsan ka qaadaan. si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay ciidamada dowladda Soomaaliya ay hor istaag ku sameeyaan banaanbax looga soo horjeedo madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ridwaan Shacab Maxamed Social Jawhar TV Muqdisho. tahay inaad page-keena like iyo follow aad tiraahdo ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay Jawhar TV. daawade mar waliba waxaad naga heli doontaa warar sugan